الله محله oo suurtageliyay inaan maanta halkan isugu imaano annagoo u dabaaldegayna munaasabadda 59 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga eheladooda cid walba waxaan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka soo socda inaan gaarno guulo ka badan intii aan soo marnay waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin naftigayga ee igu reebtay taariikh sida Generaal Maxamed Cali Wakar uga hadlay taliyaha ciidanka xoogga in dhaqarsho iyo taariikhdii ay isla soo mareen waxaan rabaa naftigayga inaan ka taariikheeyo Maxamed Cali Wakar oo anigu aan u aqoon jiray Jaamac Cali Wakar واسير فكتي anigoo dhalinyaro ah oo markaas u bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda shaqo u bilaabay waa 82 yaa habeenada kamid ah nala qafaalay waagaasna 82 waxa socday dagaalkii Goldogob iyo Balanballe marka wax alla wixii dhalinyaro ah waa la qafaali jiray nasiib darro ma oran karo laakiin waa la qafaale habeenkaas waxa la igeeyay xero la yiraahdo 77 habeenkii oo dhan baan meeshan aan joognay anagoo 2000 oo dhalinyaro ah oo isku jira wax dawlad u shaqeeya iyo waxaan u shaqeyn iyo cid walbaba waagii markuu bariyay yaa waxaan lagu soo qaaday baabuur waaweyn remoorada kuwa leh yaa lagu soo qaaday waxaan isleenahay waxa la idin wadaa meeshii ahayd Balanballe iyo Goldogob wala wada naxsan yahay markii baabuurta ay dhaqaaqday oo ay cagta saartay oo ay ka baxday meeshii maxaan ku raahdaa controlkii hore ee Balcad waxaan meesha aan rabo inaan khibradeeda aan idin la wadaago waxay tahay iyo xoogga ciidankeena meesha uu marayay iyo waqtigii la lahaa ciidanka xoogga Soomaaliyeed waa libaaxyada Afrika waxa isdaba yaalay laga bilaabo maxaan ku raahdaa isgooska warshadaha ilaa Hiilweyne oo ahayd meesha loo waday baabuuro jiidaya taangiyo dabaabado iyo baabuuro badan oo aad leedahay ilaa 5000 oo ciidan yaa saaran marka baabuurtu tartiib ay u socotaa baabuur tartiib ay u socotaa marmarna waa istaagayaan annagana waa ka dab istaagaynaa oo waa gees maraynaa sidii aan dhexda u maraynay yaa waxa ka degay baabuurka taliyihii ciidankaas watay oo ahaa Maxamed Cali Wakar hadda xoogaa waa da'ba heshay anigu dadka waa ka aqaanay oo daris yaan ahaan jirnay baabuurku ka soo dhaxbaxay wuxuu hagayaa marka ciidanka tirada badan iyo dabaabadaha wada socda runtii inta badan baabuurka ila saarneed waa naxsanaayeen laakiin markay arkeen intaasoo ciidan oo socota oo jiidada dagaalka u socota iyo intaasoo dabaabadood xaqiiqatan kulligeen qeyrana wada gashay anuu markaas waxaan ahaa junior nin dhalinyaro oo markaas shaqo bilaaban ahaa qeyro kulligeen waxaan wada gashay intaasoo ciidan iyo intaasoo hub isjiidaya oo u socda jiidaha dagaalka inaanan ka harin xaqiiqatan Hiilweynaan tagnay kulligeen waxaan ku qanacsanahay kulli intii baabuurka nala saarneyd cid walba hal ahaado hadduu yahay shaqaale iyo hadduusan haynba waxaan ku qanacnay markaan aragnay heybadda ciidanka iyo sharafka ciidanka iyo qalabka ay wataan iyo ciidanka sidoo nadaamsan yahay iyo
barboska iyo qadiyada loo socdo hadduu shaqeeyo qofkii hadduu shaqeynba inuu ciidanka ka qayb galo hadda ogaada waana la qafaalay waana la soo xoogi laakiin waxaan ku qanacnay markaan aragnay ciidanka qaabkiisa iyo nidaamkiisa iyo quruxdiisa iyo heybadiisa iyo sharafkiisa iyo intaasoo ciidan oo socdo oo diyaar u ah inay dalkooda u dhintaan annagu inaynan ka nafiicnayn marka annagoo ku qanacsan inaan ciidanka ka qayb galno oo tababarkaas qaadanno yaa subaxdii waxaa bilaabatay in la iskala saaro marka bacdamaadii ciidanku uusan ciidan ku yarayn waxaa la qaadanayay dadka aan shaqayn marka iyo dhalinyarada yaa la qaadanaya laakiin qof alla qofkii shaqeeyo waa laga saaraya ciidanka xaqiiqatan anoo qushuucsan yaa laga soo saaray markii anigu aan sheegay inaan wasaaradda arrimaha dibadda u shaqeeyo marka runtii waxay ii ahayd xasuus gaar ah inaan arko maxamed cali abukar oo nin dheer ah oo xoogaa madaxiisa cirradii soo gashay oo ciidanka marba istaagaya oo hagaaya oo jidka maxaan ku rahdaa uga beeraya ciidanka kale dadka kale oo jidka maraya nasiib wanaag 3 sano ka bacdi waxaan isugu tagnay Washington isagoo adaad military ah iyo anigoo maamulka safaaradda ka shaqeeya jaamac waad mahadsan tahay guud ahaan ciidanka qalabka sida oo runtii dalkan u soo halgamay dadaalkii iyo sacrifice-kii u soo mareen iyo sharafkii iyo heybadii ay gaarsiiyeen ciidanka qalabka sida oo aan noqonnay ciidanka runtii ugu sarreeya taya ahaan Afrika iyo caalamka oo meel walbaba laga sheego oo hadda markii ugu dambeysay aan tagay magaalada Bujumbura Burundi aan tagay madaxweynahoodu uu qiray anigu waxaan ka raadinay madaxweynaha inuu ciidanka jooga shabeellada dhexe inuu ii dhaafo oo aanan maxaan ku raahdaa aanan dib loo celin wuxuu ii sheegay uu qeyrtay in ciidanka Soomaaliyeed ay tababareen ciidanka Burundi hadda la taageerayo gacanta la siinaya kaliya Burundi ma aha inaan tababarnay halganada Afrika ka socda kulli qaybaan ka ahayn halganada kulli ciidamada aan tababari jirnay hubkana waa siin jirnay macnaheedu waxay ahayd annagu waxa weeye waxaan gaarnay isku filnaansho hadda se waxaan taaganahay in la caawiyo oo gacan la siiyo si aan u gaarno meeshii shalay aan joognay oo aan ku faaninay ciidankeena qalabka sida waa xaqiiq ciidanku waa laf dhabarka qarannimada Soomaaliyeed ciidanku waa tiir dhaxaadka difaaca dalka dal haduusan ciidan lahayn qaran ma noqon karo madaxweyne iyo dalba waxa lagu sharfaa inta ciidankiisa dhulku yahay inta ciidan cir uu leeyahay inta ciidan bad uu leeyahay yaa lagu xurmeeyaa laguna qiimeeyaa macnaheedu waxay tahay ciidankeenu inkastoo soo maray marxalad aad iyo duruufo aad iyo adag laakiin waa maqlayseen taliyuhu warbixintu idin siiyay oo faahfaahsanayd meesha aan marayno iyo horumarka aan gaarnay waxaan rajaynayaa insha Allah muddo yar oo kooban inaan helno ciidan tayo leh tiradu way wanaagsan tahay laakiin tayo leh oo ummadda Soomaaliyeed ay maxaan ku raada ku seexan karto waxaan rabaa inaan sheego oo aan cadeeyo maanta markii aan arkay bandhigii aad soo bandhigteen ciidanka aad soo bandhigteen waxay muujisay in aan isku filnaan karno macnaha qalabka aan leenahay iyo ciidanka spiritkiisa waxay muujisay runtii awood ciidanka uu ka difaaci karo cid kasta oo ku soo duusha inuu ciidanka maanta aan aragnay oo la soo bandhigay uu awood u leeyahay inuu ka difaaco waxaan se ognahay oo kale qalabku waa wanaagsan yahay tayadu waa wanaagsan tahay laakiin waxaa ka sii muhiimsan niyadda iyo moralka ciidanka moralka ciidankuna wuxuu ka bilowdaa ciidanka marka uu qoranayo wuxuu u qoranayaa maaha inuu nolol ka helo inuu shaqo ka helo oo ku noolaada maaha
wuxuu u qoranayaa ciidanka inuu naftiisa u hibeeyo inuu ciidiisa u dhinto inuu dalkiisa difaaco yuu u qoranayaa ciidanka laakiin ciidanku markii uu gaaro ciidan loo qorto mushaaharo in laga qaato oo nolol laga raadiyo markii loo qorto ciidanka ama ciidanku uu yahay ciidan siyaasadeed ama ciidan qabiil ciidan ma noqon karo ciidanku wuxuu yahay ciidan markii uu leeyahay barbus sabab uu u dhinto caqiido wadaniyad macnaheedu intaas waxay ka xog badan tahay qalab kasta uu haysto iyo tababar kasta uu qabo maxay yeelay wax kasta waxa ka xog badan moralka ciidanka ka xog badan niyadda ciidanka yaa ka xog badan tayadu naftigeedu waxa weeye ciidanka marka laba ciidan ay iska hor yimaadaan waxa la yiraahdaa labada ciidanka guuleysanaya waxa koob ka ah jananka wata ama taliska wata ama saraakiisha wadata laba waxa weeye niyadooda iyo moralkooda intee maraya saddex waa qalabka ay wataan macnaheedu waxay tahay sarkaalku iyo leadership waa number 1 ciidanka sarkaalka laga rabaa marka inuu ciidanka moralkiisa dhiso markaas yaa waxa imaanaysa discipline iyo qalab waxaan aaminsanahay hadda sidaan u shaqeynayno iyo qaabkan u wadno inay tahay qaabkaas oo aan niyadda aan ugu dhisayno ciidanka si ay u difaacaan xuduudahooda iyo cirkooda iyo baddooda waxaan bilownay siduu sheegay taliyaha tirakoob waxaa fiican heeso cusub inaan bilowno heesahaas heeso hore ahaayeen tirakoobka macnihiisu waxay tahay inaan ogaano tayada ciidanka inaan ogaano iyo tirada ciidanka si aan u qaabeeno oo aan u abaabulno dagaalgelintooda iyo hawlgalkooda tirakoobku waxa weeye in ciidanka aan haysan uu sax yahay waa ogtihiin labadii sano la soo dhaafay waxaan ku guuleysanay oo xaqiiqo ah waxa hore noo soo marayna ma ahayn in aan ciidanka xuquuqdooda siino haba iska yaraadaba oo ay joogto noqoto maalintaas aan bilownay inaan siino xuquuqda ciidankana waxaan ku bilownay inaan dhahno hala sameeyo tirakoob sax hala sameeyo biometric hala sameeyo xaqiiqatan si kasta ahaato aad iyo noogu adkaatay maxaa yeelay tirakoobku waa isbeddelkuna wax sahlan ma ah dadku ma jecla isbeddel ilaahay hadda wuxuu nagu guuleeyey culays walba iyo dhib walba hanaga soo gaaro 3 bilood ugu dambaysay inaan xaqiijino ciidanka aan haysano tirakoobkooda iyo tiradooda inaan xaqiijisano wax walba aan sameynay waa dhici kartaa in siyaalo ka wanaagsan la sameyn karay laakiin waxaan soo jiitamaynay muddo 2 sano ah sidii ciidanka aan tirakoob sax ah aan ugu sameyn lahayn oo maalin walba iyo bil walbaba aan dib u dhigaynay ama siyaalo kale loo qaataa ama ciidanku maxaan ku raahdaa u gadoodaa ama wax kala dhici karaan xaqiiqatan taliyaashii hore naftigoodu waa dadaaleen xitaa waxaa dhib noqotay in ciidanka loo sameeyo account number loo sameeyo si lacagta mushaharkiisa ay toos ugu dhacdo waxay nooga adkayd waxaydan malayn karin si kastaa ha u xanuun badnaato laakiin waxaan rabnaa ciidanka aan leenahay inaan ognahay tirada aan haysano tiro yar ma aha tirada hadda ciidanka u qoran mushaharaadkan ku bixinayna 2 sano tiro yar ma aha macnaha aan u sameeyno tiro koobkuna wax kala ma aha in aan quality-ga xaaladda ciidanka noloshooda aan wax ka bedelno waxaan uga bedelaynaa markii aan ogaano khaladka iyo inta soo hartay in dhaqaalahaas aan baajinay inaan ugu kabno iyaga kuwii sax ahaan ugu kabno meeshaan u soconno
haddii 26,000 27,000 yihiin waa sheegaynaa tiradan waa la wada og yahay oo wax qarsoodi ah maaha haddii 15,000 16,000 aan diiwaan gelinay inta hartay waxaan ugu kabeynaa inta dhabta ah yaan ugu kabeynaa intaas waxaa dheer taliyayaasha maxaan ku raahdaa la jooga ciidanka saraakiisha inaan u helno iyaga naftigooda miisaaniyad gaar ah oo ay ku maamulaan bacdama aynan lahayn health insurance aynan lahayn in taliyahaas ay hadduu yahay taliyo guuto iyo hadduu yahay taliyo qayb iyo hadduu yahay taliyo urur aan u siino budget ama miisaaniyad gaar ah uu ku maareeyo askarta dhibaataysan intaasna lama heli karo haddii aan wax la sixin intaasna lama heli karo haddaan musuqmaasuq laga bixin intaasna lama heli karo waxa weeye haddaadan haysan tirada saxda ah oo ciidankaaga aad haysatay uu yahay intaas waxaa dheer markii aan naqaano tirada aan haysano saxa ah oo annagana dhaqaalaheennii iyo wax walba aan ku jaangoonno oo noloshoodii aan wax ka bedelno oo mushaharaadkoodii aan u kordhinno caalamka waa u weydiin karnaa taageero waxaan oran karnaa intaan saxan haysanaa wax nagala qabto nagu kaalmeeya hadday noqoto mushaharaadka hadday noqoto qalabka waana noo diyaar horeyna waa noo siin jireen waad ogtihiin waxay nooga gooyeen maxaa yeelay tirada aan haysano tiro la yaqaano oo saxa ma ahayn marka god qodan cid wax ku shubaysa ma jirayso waa in la og yahay hadday wax bixinayaan iyagu naftigoodu lacagta dhirta kama soo goostaane dad bay ka soo qaadaan canshuur bixiyaa leh inay oran karaan wixii aan bixinay waxay keentay horumar waxaan ku bixinay mushaharaad xaqiiqatan diyaar ayay noola yihiin laakiin annaga dhaqaaq weynay mudooyinka la soo dhaafay nasiib wanaag waa isku tashanay cid lacag maxaan ku raahdaa ciidanka qalabka siinaysay oo annagu intaan siinaynay ka badan ma jirin marka dib waa u noqon karnaa waa weydiin karnaa kaalmo shisheeye waa weydiin karnaa intaas waxaa dheer shacabka naftigiisu waxaan uga baahannahay taageero markii ciidankeenu ay tayo leeyihiin oo ay leeyihiin caqiido iyo sabab ay u dhintaan oo ay difaacayaan dalkooda waa sahal shacabku inay taageeraan ciidankooda ay garab istaagaan waa sahal shacabku inay canshuurta bixiyaan oo canshuurta ay bixiyaan xitaa ay ku kordhiyaan sida hadda haweenka ay noo sheegeen ay u diyaarinayaan sida u taakulayn lahaayeen ciidanka qalabka sida ee frontiyada iyo aagaga dagaalka ku jira maxaa yeelay wax walba waa sax howlgalladu waa sax guusheennu waa saxan tahay khasbiyan shacabkuna gacan iyana siinayaan iyo cid walbaba sidaas darteed intaas markaan isla helno si sahal ah ayaanu ku tirtiri karnaa marka qolooyinka nabadiidka ah argixisada ah marka haddii aan helno tayada iyo tirada ciidanka inaan iswaafajinno haddii aan helno tiro koob sax ah waxaan helaynaa taageerada caalamka iyo taageerada shacabka shabaabna hal maalin ma istaagi karaan waa xaqiiqo weyn hal saacad ma wajihi karaan ciidanka qalabka sida maxaa yeelay waxaan nahay ciidan nidaamsan saraakiil wanaagsan oo wadata talis maxaan ku raahdaa daba socda iyo madax ilaalinaysa xuquuqda iyo caafimaadka iyo nolosha ciidanka waxaan aaminsanahay waqti waa dhow yahay guushu waa dhowdahay waxaa guusha kaliya naga xigta adadkaysi iyo ciidanka inaan ka bixino musuqmaasuqa inaan ka saarno musuqmaasuq waa ognahay waddankan muddadii aan soo jirnay dhibaatadii nagu haysay iyo inay qayb ka ahayd burburka dowladnimadeennu halkaas waxaa ku taalla nabad iyo nolol yaa ku taalla muddo dheer yaa waxaa la horumarin jiray nolol nabaddana dib baa loo dhigi jiray sababta annagu aan nabadda u horumarinay waxay tahay nabaddaa wax walba ah marka nabad la helo yaa nolol la helaa laakiin nolol ma raadin kartid oo sidaan ahaan jirnay ahayd maxaa yeelay qof walba noloshuu raadinayay nabadda dan lagama lahayn
waxay keentay markay nabadii in la waayo waxa weey macnaheedu nin madaxa ku socdo weey marka nabadda horeysa nabadda aan hormarino nabadda aan ka wada shaqeyno kadib waxaan helaynaa maxaan ku raahdaa ummadeena iyo shacabkeena inay nolol wanaagsan helaan laakiin haddaan ku dhaqanno sidii ay ahaan jirtay oo qof walba uu ka raadiyo meesha wax ka heli karo sax iyo khaladba haddii 20 sano soo socdaan sidii aan ahayn yaan ku jiraynaa marka kulligeen qalbigaan gashanno kulligeen aan soo sheegno nabadda annaga yaa ku nool iyada naguma noola nabaddu waa aasaaska bini aadanka iyo horumarkiisa weey nabaddu aan ka wada shaqeynaa nabaddana waxaa keeni kara ilaahay ka sokow waxa ugu horeeya ciidanka qalabka sida keeni kara shacabkuna way kaalkaalin karaan oo waa taageeri karaan laakiin nabadda waxa looga fadhiyaa ciidanka looga fadhiyaa maxay yeelay iyaga loo tababaray iyaga laga rabaa cadowga inay la dagaalaan hadduu yahay cadow shisheeye dibadda iyo cadow gudaha labadaba waxa intaas dheer uu taliyaha ka hadlin doctoriinkii qaabkii aan u dagaali jirnayna waa bedelnay qaabkii awal loo tababaray ciidankeenu waa qaabkan sheegay oo dabaabadaha iyo ciidanka qirka iyo kulli ay la maxaan ku radaa ku dagaal gali jireen oo ahayd qaab dawlad iyo dawlad ah conventional la yiraahdo ciidanka dadka hadda cadowgan la dagaalayna hadda iyo qaabkii u dagaalaan conventional ma aha waa ka duwan yahay waxaan u tababaraynaa ciidanka waxaan u tababaraynaa qaabkay u dagaalamaan oo asymmetric la yiraahdo yaan u tababaraynaa waxaanan hubaa muddo yar oo kooban inaan ka adkaanayno sidii hore aan ula dagaalaynay runtii ma ah xamar markii laga bixinayay sax bay ahayd conventional bay ahayd maxaa yeelay iyaguna dhufaysay qoteen ciidankeena dhufaysay u qodnaa laakiin hadda sidii ma aha hawshoodu waa ku dhufo oo ka dhaqaaq marka waa in loo helo ciidan noocaas u tababaran wuxuu go'aan ku qaatay taliyuhu marka ciidankeena laga bilaabo doctoriinka uu ku shaqeyn doono inuu noqon doono sidaas oo asymmetric ah oo maxaan ku raahdaa sida u dagaalaan aan ula dagaalayno insha Allah